magaalada Beijing oo caasimada dalka Shiinaha ah. Kursigii uu ka kacay oo uu kula kulmay madaxweyne Vladimir Putin waa la tirtiray. waliba mid kamid ah ilaaladiisa ayaa waxa uu u dhaqaaqay kursiga ilaa xitaa koobkii uu wax ku cabay. hadal hayn ayaa arintan waxay ka abuurtay warbaahintii reer galbeedka. maxay halkaas ay ka dhex arkeen? bal ka waran sida uu isu ilaalinayo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. saaxiibkii halkii uu kula kulmay xitaa waa laga daba tagay. xogagiiska cabinta ee Xamaas waxay soo saareen fariin lala yaabay oo markii ugu horeysay lagu arkayo muuqaaladii ama warbixinadii ay soo gudbin jireen xogaga. waxay soo daba dhigeen fariintooda QR code, waxay soo bandhigeen sawiro iyo tiro maxaabiis ah oo aan la islahayn gacanta ay ku hayaan xogagiiska cabinta ee Xamaas. fariinta ay baahiyeen sida ay Israa'iil u galgashay waan eegi doonaa. waxa kale oo raaci doona sargaal hore oo ciidamada Israa'iil ka tirsan oo digniin ka soo saaraya howlgalka cusub ee ciidamadoodu ay doonayaan inay ka fuliyaan gudaha magaalada Gaza. waxa raaci doona falanqeyn ku saabsan Mareykanka maadaama hadda dhanka Venezuela uu dhaqaaqay. waa maxay caqabadaha uu la kulmi karayo? suuragal ma tahay hadda madaxweyne Trump dagaalkaasi inuu Venezuela uu ku qaado? waxyaabaha uu la kulmi karo, caqabadaha hortaagan, falanqeyn guud oo arintaasi ku saabsan waan eegi doonaa. sawirada dhanka satellite-ka ee muujinaya Iran iyo dhaqdhaqaaqa ay ka bilowday xarumaha nuclear-ka iyo qodobo kale oo muhiim ah. soo dhawaada saaxiibayaal, ku soo dhawaada barnaamijka falanqeynta caalamka. anigu waa Maxamed Ciise, bartana waa Maracadda Show. waana 4 bisha September 2025 Khamiis, qaybta labaad ee barnaamijyadeena oo aan halkan ku soo gudbino maalin kasta. soo dhawaada, waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan muuqaalka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweyne Vladimir Putin oo kulmay. kadibna mid kamid ah ilaalada Vladimir Putin oo u diidaya ilaaladii Kuuriyada Waqooyi in ay u soo dhawaadaan halka labada madax ay ku kulmayaan. wuxuu ahaa midkii loogu hadalhaynta badnaa saacadii la soo dhaafay barta Twitter-ka. laakiin muuqaalkaasi waxaa maya yiri muuqaal kale oo la soo bandhigay kaas oo shaki badan uu ku gadaaman yahay. waa maxay sida uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi isu ilaalinayo? maxaa talaabadan loo qaaday? ma waxay ka dhigan tahay wuxuu iska ilaalinayaa xitaa saaxiibadiisa? iyo su'aalo kale ayay si gaar ahaaneed u falanqeynayaan warbaahintii reer galbeedka. aan kula wadaaga muuqaalka sidaad arkayso waa mid kamid ah ciidamada ilaalada gaarka u ah madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi. waxa uu dul tagay mid kamid ah kuraastii uu ku fadhiyay. muuqaalkan waxa markii ugu horeysay Telegram-ka soo dhigay nin lagu magacaabo Alexander Yunashev. waa wariye madaxtooyada dowladda Ruushka u hadla. marka wuxuu muujinayaa mid kamid ah ilaaladii gaarka ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo soo qaatay qalab loogu talagalay in lagu baabi'iyo halka madaxweynahooda uu ku fadhiyay. sidaad arkayso wuxuu tagayaa kursigii madaxweynaha uu ku fadhiyay, dhammaan geesihii meeshii uu duudka saaray, halkii uu dusha saaray, gacmaha halkii uu saaray, xitaa weelkii uu biyaha ku cabay, miiskii, intaasoo idil wuu baabi'inayaa waana uu tirtirayaa. si gaar ahaaneed waxaa jira daawooyin loogu talagalay. ujeedku wax kale ma ahan, waa in ugu yaraan halkii uu ku fariistay DNA-giisii iyo waxyaabaha la midka aan la dabagelin si loo ogaanin ugu dambeyn yani asalkiisa iyo halka uu ka soo jeedo, ama ugu yaraan xitaa cudurro iyo waxyaabaha la midka aan la isu qaadsin. adduunyada way tagto halkaas ayaa la marayaa. maxaa yeelay DNA-daada oo la helo wax badan ayay fududaynaysaa. haddii aad xusuusataanna madax badan oo Israa'iil ay sheegtay inay dileen, waxyaaba ay ku xaqiijiyeen waxaa kamid ah DNA-da. dad badan oo ishaystay waxyaabaha lagu kala saaro waxaa kamid ah dheecaanka ama DNA-ga dhiigga loo yaqaano. marka muuqaalkan ayaa noqday mid si weyn viral uga noqday baraha bulshada, si gaar ahaaneed barta Twitter-ka. warbaahintii reer galbeedkana si gaar ahaaneed ayay u falanqeynaysay. ma doonayo inaan kusii fogaado, aan ka soo laabto, aan eegno xogagiiska cabinta ee Xamaas. xogagiiska cabinta ee Xamaas ayaa baahiyay muuqaal sekano kooban soconaya laakiin fariin digniin oo aad u adag ah. muuqaalku wuxuu muujinayaa marka aad eegto QR code inay ku soo lifaaqeen xogagiiska cabinta oo ah halkaas waa furaha maxaabiista aad doonaysaan inaad sii daydaan. waa digniin degdeg ah oo xogagu ay soo direen. waxa muuqaalka lagu baahiyay barta Telegram-ka. waxa uu muujinayaa marka tirada xogagiiska cabinta Xamaas ay gacanta ay ku hayaan ee maxaabiista. waxaa halkaasi lagu soo koobay sawiro muujinaya ilaa iyo 45 maxaabiisa oo mid kamid ah ayaa lagu soo diray muuqaalka isagoo muujinaya inuu aad u niyajabsan yahay, madaxana qabsanaya. laakiin muuqaalkan waxyaabihii ugu horeeyay ee lagu arko waxaa kow ka ah marka QR code-ka. waa hagaag, aan isku dayno QR code-kan wuxuu yahay inaan kamirada dulgayno. halkan ku qoran waxaa ku qoran luqadda Cibraani oo kaada aan Ingiriis ka dhigno. waa gartay.
waxaan u malaynayaa dadkan waa askartii ay xoogaga iska caabinta ay ku dileen magaalada Gaza dagaalka intuu soconayo oo lagu daray maxaabiistii gacanta ay ku hayeen. Marka waxaad moodaa dagaalku inuu aad u adag yahay. Waa dagaal dhanka maskaxda iyo sirdoonka ah. QR code-ka sidiis banaan waa dhibco yaryar oo madow iyo sidoo kale cadaan ka kooban. Haddii aan si faahfaahsan uga hadalno, waxaan u malaynayaa Japan shirkad laga leeyahay inay soo saartay sanadkii 1994 ujeedkuna waxay tahay marka kaamirad la tuso ama waxyaabaha la midka sida ugu dhaqsiyaha badan inay u aqriyaan xogta ku jirta QR code-kaasi. Marka xogaga markii ugu horeysay ayay soo bandhigeen, taasoo muujinaysa in maxaabiistaasi kaliya iyaga ay yihiin cidda furi karta. waxay ku soo aadiyeen marka la eego sheekada ka dambaysa muuqaalkooda, iyadoo Israa'iil ay bilowday wejiga labaad ee howlgalka ay ugu magacdareen Jidon, halka xoogagga iska caabinta ee Xamaasna iyaga ay bilaabeen howlgalka ay ugu magacdareen ushii Nabi Muuse calayhi salaam. marka dhinaca kale aan eegno, tani ma la dhihi karayaa ama QR code-ka isticmaalkiisa Xamaas waxay kaga jawaabayeen Israa'iil iyo tallaabooyin ay hore u qaaday. maxaa yeelay marka ay doonayaan dadka inay barakiciyaan, Israa'iiliyiintu waxay isticmaali jireen QR code iyo nambaro iyo yani halkan lama mari karo, halkan taga iyo meelo waxyaabaha la midka. iyagana taas oo kale ay xogagu ay kaga jawaabayaan. xogagu sidoo kale waxay ka jawaabeen fariimo kala duwan oo hore Israa'iil ay u soo saartay oo ay ka mid tahay in howlgalku ay doonayaan inay ballaariyaan oo ay deegaano badan ay gacanta ay ku dhigaan. laakiin waxay yiraahdeen sanaadiiq ay ku jiraan meydadka maxaabiistiin ayaad kala laaban doontaan gudaha magaalada Gaza. arrintan marka waxay muujinaysaa laba arrin oo muhiim ah oo ah digniin toos ah oo Israa'iil loo dirayo oo ah howlgalka aad doonaysaan inaad maxaabiista ku furataan idima suuragalayo, iyo arrinta kale oo ah dagaalka dhanka warbaahinta oo maalmihii ugu dambeeyay aad u xoogaysanayay marka la eego dagaalka muddada 23 bilood ka soconaya gudaha magaalada Gaza. arrintan marka waxay ku soo beegmaysaa iyadoo 29 bishii ina dhaaftay ee Agoosto xoogagga iska caabinta ay hanjabaad adag ay u direen Israa'iil. hanjabaadaasi oo ah in Israa'iil ay caqabad weyn kala kulmi doonto qorshe ay doonayaan in magaalada Gaza ay ka fuliyaan, sidoo kalena maxaabiista iminka gacanta ay ku hayaan kaliya lagu sii deyn karayo in wadahadal la yeesho, miiska wadahadalka la isugu yimaado, heshiisna la gaaro. dhinaca kale, ninka Yitzhak Brig lagu magacaabo waa generaal hore oo howlgaba oo Israa'iili ah. wuxuu yiri qorshahan la doonaya in magaalada Gaza dib loogu qabsado musiibo wuxuu ku noqon doonaa Israa'iil, waxaana uu horseedi doonaa guul Xamaas ay gaarto. maxaa yeelay buu yiri way adag tahay waqti xaadirkan in la daciifiyo xoogagga iska caabinta ee Xamaas, isagoo tusaale u soo qaadanayay xoogaggu inta ay dagaalamayaan iyagoo aan wax huba helin muddo 23 bilood ka badan, siday u dayactireen godadkooda, siday weli isugu xirayeen, xitaa haddii madax laga dilay inay weli dagaalamayaan oo dagaalkooda uu yahay mabda balse uusan ahayn kaliya inay guul gaaraan. marka ninkan generaalka oo howlgabka ah digniin ayuu u diraya. wuxuu ka mid yahay generaalo badan oo Israa'iil digniin u diray, gaar ahaan Netanyahu. iyaguna waxay doonayaan inay howlgalka wadaan, deegaano badan gacanta ay ku dhigaan, waxaana la diiwaan gelinayaa dhacdooyin culus oo lagu waramayo in laga diiwaan geliyo maanta magaalada Gaza, iyadoo dad badan oo shacabaan ay ku dhinteen gudaha magaalada Gaza kadib diyaaradaha dagaalka Israa'iil duqeymo ay ka fuliyeen magaalada Gaza. waan arki doonaa arrimahan oo idil waxyaabaha ka soo kordha. aragtidaada qaybta hoose ku reeb like-saan muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. toddobaadkan waxaa taagan xiisada u dhaxaysa Venezuela iyo Mareykanka. madaxweyne Trump dhawaan wuxuu baahiyay muuqaalka muujinaya iyagoo bartilmaameedsaday dooni ay sheegeen in 12 ruux ay saarnaayeen oo waxyaabaha maanka dooriya lagu gudbinayay oo Venezuela laga keenay lana geenaya dalka Mareykanka. haddaba waxaa la isweydiinayaa Mareykanka muxuu kala kulmi karayaa dagaalka uu doonayo Venezuela inuu ku qaado? miyay dhici kartaa in duulaan Mareykanka uu ku qaado Venezuela? muxuuna la kulmi karayaa? anigoo soo koobay waxaan rabaa inaan kula wadaago ilaa iyo 3 xaaladood oo ay khubarada ku saadaalinayaan wargeyska Newsweek iyo telefishinka Al Jazeera warbixinada ay daabaceen waan kula wadaagayaa. ciidamo yar ayaa la geeyay marka hore deegaanada dhinaca badda Caribbean-ka, halkaas oo Mareykanka uu doonayo duulaankiisa ugu xogan inuu ka qaado. khubarada dhanka militariga waxay aaminsan yihiin marka in gobolka kaliya kumanaan askari ee Mareykanka kaga sugayeen, kuwaasna aysan ku filnayn inay qabsadaan dal weyn oo Venezuela la mid ah, halkaas oo yani juqraafi ahaan marka la eego Venezuela aad bay u adag tahay in duulaan lagu qaado marka buuraha, kaymaha iyo magaalooyinka waaweyn ee adag la eego. tusaale ahaan duulaankii Mareykanka uu ku qaaday Panama 1989 in ka badan 20,000 oo askari ayaa ka qayb galay. marka kumanaan askari inuu hadda Mareykanka u diro Venezuela, dadka qaar waxay qabaan in aad u adkaan doonto in dagaalkaasi ay ku guuleystaan. tan labaad, dhulka Venezuela oo aad u adag. maxaa yeelay Venezuela juqraafi ahaan waa meel aad u adag oo buuro ah,
kaymo cufan ah, magaalooyin ballaaran, kuwaasina waxay ka dhigayaan marka guul dhammaystiran inay helaan ciidanka Venezuela maadaama deegaanku ay aad u yaqaanaan. Maraykankana wuxuu ku qasbanaanaya xitaa haddii duulaan uu ku qaado dalkaasi dhaqaale badan inuu ku bixiyo, askar badanna ay kaga geeriyoto. Waana tallaabada labaad oo khubaradu ay leeyihiin way adag tahay Maraykanka inuu duulaan ku qaado waqti xaadirkan iyadoo marxaladaasi uusan ku tashan dalka Venezuela. tan kale waa xaaladda siyaasadeed, maxaa yeelay madaxweyne Trump Nicolas Maduro wuxuu ku eedeynayaa inuu yahay hogaamiye shabakad isku xiran waxyaabaha maanka dooriya ka ganacsada hogaaminaya. haddana weli lama arag qorshe cad oo Maraykanka arrintan uu ka leeyahay iyo tallaabo cad oo xaqiijinaysa, wax kalena ma ahan maadaama aragtidii Maraykanka ninkan uu ka soo horjeestay. waxaa lagu shabadaynayaa inuu yahay hogaamiye ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya. khubaradu marka badankood waxay tilmaameen tallaabada Maraykanku inay tahay fal cadaadis ah oo la doonayo in la saaro Nicolas Maduro madaxweynaha Venezuela. haddii marka xaaladda la qiimeeyay, dadka qaar waxay leeyihiin suuragalnimada qaababka faragelinta ee Maraykanka ama duulaan uu ku qaadi karayo saddex ayaa lagu soo koobay. watan koowaade inuu adeegsado weerarka gantaalada fog ee Tomahawk iyo waxyaabaha la midka ah, ama weerar dhanka cirka ah inuu Venezuela u adeegsado, inuu xoog saaro dhanka badda iyo cirka oo badda hadda maraakiib ayuu u diray, maraakiib kale oo aad u tababaran, aan iraahday maraakiib kale oo aad u badan oo ciidan tababaran ay saaran yihiin, iyo dhanka cirka inuu ka duqeeyo. iyo tan saddexaad oo ah cutubyada ciidanka Mariniska inay howlgallo qaasay ka fuliyaan Venezuela iyo agaarkeeda. Nicolas Maduro wuxuu ku hanjabay 4 milyan oo askar inuu diyaariyay. maalin dhaweyd wuxuu iska soo duubay muuqaal isagoo ciidankii ku dhex jira oo ay leeyihiin waan dagaalamaynaa, Maraykankana waan ka hortagaynaa. marka halkaasi caqabad weyn ayaa ka soo socota. waa Latin America, waqooyiga iyo koonfurta iyo labada dal ku kala yaalaan. suuragalna ma ahan waqti xaadirkan Maraykanka in dagaal uu ku qaado Venezuela, laakiin cadaadis ayuu saari karaya. adigu maxay kula tahay? qaybta hoos aragtidaada ku reeb, waad mahadsan tahay. warbaahinta Twitterka waxaa si weyn loogu falanqeynayaa howlgalka xoogagga iska caabinta Xamaas ay ugu magac dareen ushii Nabi Muuse calayhi salaam. waxay inta ugu badan dadku ay leeyihiin Ciisadiin al-Qassam way laqi doonaan ciidamada Israa'iil maadaama howlgalkaas ay ugu magac dareen ushii Nabi Muuse. qaybaha carabta ayaa si weyn loogu falanqeeyay qoraalka ama warbixinta ku saabsan howlgalka xoogagga ay ugu magac dareen ushii Nabi Muuse, iyadoo la soo bandhigayo xoogagga markii ay farsameynayeen gantaalka Al-Yaasiin 105 sawiradii ay soo bandhigayeen, howlgalladii ugu dambeeyay ee xoogagga. sidoo kale waxaa la soo bandhigay mid ka mid ah, weliba sawir wuxuu ahaa kartoona, ruux gacanta ul ku haysta laakiin hortiisa ay ka soo socdaan taangiyadaasina ushii ayaaba mas isugu bedeshay oo gabi ahaan waa la liqayaa. carabta marka aad bay u falanqeeyeen sawirada, waxay soo bandhigayaan muuqaalada muujinaya xoogagga iska caabinta Xamaas iyo guulihii ay ka gaareen magaalada Gaza. inkastoo Twitterka aad ay ugu badnaayeen faallooyinkooda, laakiin nuxurku wuxuu ahaa in xoogagga iska caabinta Xamaas ay liqi doonaan taangiyada Israa'iil. dhanka kale sawirro dhanka dayax gacmeedka ah oo la soo bandhigay ayaa muujinaya mas'uuliyiinta dowladda Iran oo dhaqdhaqaaq ka sameeyay xarunta nuclear-kan iraado Natanz loo yaqaano ee dowladda Iran. waxay dadka qaar ay aaminsan yihiin in Iiraaniyiintu ay bilaabeen in waxyaabaha qaar sida qalabka qaboojiyaasha iyo waxyaabaha la midka ee hubkan nuclear-ka lagu bacrimiyo iyo uranium-taba iyo waxyaabaha la midka ah inay meelo kala duwan ay doonayaan inay geeyaan, iyagoo ka fogaanaya mar kale haddii la bartilmaameysado in waxyeello ay soo gaarto xarumaha nuclear-ka ee dowladda Iran. madaxa macadka cilmiga iyo amniga ee caalamiga ah ee lagu magacaabo David Albright ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani ujeedada Iran ay ka leedahay ay tahay inay ku yareyso khatar gaari karta xarumaha nuclear-ka ee dowladda Iran. sidaa daraadeedna ay door bidayaan in waxyaabo badan ay kala qarsadaan si mar kale waxyeello aysan u gaarin xarumahooda muhiimka. sirdoonka Ruushkana wuxuu eedeyn badan u jeedinayaa Jarmalka, oo waxaa lagu waramayaa Jarmalka in uu Ukraine geeyay hub muhiim ah, hubkaasi oo loo isticmaalay gudaha dalkaasi Ruushka. si gaar ahaaneed hay-adda sirdoonka dibadda ee dowladda Ruushka waxay tiri jansalarka Jarmalka ayaa Ukraine waxa uu geeyay gantaalada cruise-ka iyo kuwa la midka ah, kuwaasi oo lagu weeraray gudaha dalka Ruushka. arrimahan oo idil Jarmalka kama jawaabin. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah. waad mahadsantahay.